Faarax ninimadiisii shaqo ku waayay oo markii uu Xaliimo iska dhigay kadib helay dhammaan shaqooyinkii horey looga soo diiday. Intaan u gudagelin sheekadan la yaabka leh waxaan kaa codsanayaa daawade in aad nagu soo biirto muuqaalkana la garayso maasan. Ninkan markii loo soo diiday shaqooyin badan ayuu isku ekeysiiyay dumar isaga oo dib u codsaday ama codsiyo u dirsaday dhammaan shaqooyinkii horey loogu diiday. Ninkan oo u dhashay dalka Japan ayaa meel kasta oo shaqo u raadsaday laga soo diiday. Waxa uuna markii dambe go'aansaday in uu muuqiisa bedelo oo qof dumar ah isku ekeysiiyo isaga oo doonaya shaqo uu naftiisa ku maareeyo. Ninkan ayaa markii uu sameeyay falkaasi oo ah in uu dumar isku ekeysiiyo shaqana dib ugu dalbado dhammaan meelihii horey looga soo diiday ayaa waxaa dhacday in laga soo aqbalo codsiyadii uu dirsaday. Hadda ogow, markii hore uu ninka ahaa waa laga soo diiday oo xafiis kasta waa laga soo buriyay, codsiyadii uu dirsadayna lagama aqbalin. Taas beddelkeedana markii uu dumarka isku ekeysiiyay waxaa laga soo aqbalay dhammaan codsiyadii ama CV-yadii uu u dirsaday shaqooyinkii horey loogu soo diiday. Guushaasi uu gaaray ninkaasi sida uu isaga u arko kadib waxa uu sameeyay fal kale oo aad loola yaabo. Isaga oo sawirkiisii hore oo uu ninka ahaa iyo sawirkiisii dambe ee uu qofka dumarka ahaa isaga dhigay muuqiisana ku bedelay, soo dhigay ama soo geliyay barta loo yaqaano Twitter ee X hadda loo bixiyay. Waxaana dhacday in shaqooyinkii laga buriyo dhammaan raggii sameeyay falkaasi ee ninkan shaqada u diiday. Taasi beddelkeeda ninkan hadda waa ku qanacsan yahay in uu iska dhigo qof dumar ah oo sidaasi uu shaqo ku helo, isaga oo sheegay in ninimadiisii uu ku waayay in uu shaqo naftiisa uu ku maareeyo uu helo. Bal daawade dhanka commentiga nagula wadaaga fikirkaasi sida uu kula yahay iyo in uu kula saxan yahay iyo in uu kula qaldan yahay midka aad qabto.